ugu horeyn laagsar muuqaalkan sabskraib dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena mahadsanid halkani waa Tulito Channel aan ku bilaabana barnaamijkeena kooxaha Premier League ayaa diyaar u ah in kulankoodii ugu horeeyay ee Premier League ay ciyaaraan 13 bisha Juun sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta ayaa la joojiyay sabab la xiriira caabuqa coronavirus xilli UEFA ay sheegtay in Premier League uu u gudbayo qorshe kale oo dib loogu soo laabanayo marka la eego xilli ciyaareedkan oo hakad gabi ahaanba uu ku yimid rajada Liverpool ayaana u muuqatay in ay noqoto horyaalnimada Premier League ee dalka Ingiriiska mid soo idlaatay hase yeeshee maamulka Premier League ayaa shir la yeelan doona kooxaha maalinta Jimcada ah si kastay ahaataba wargeyska damirin ayaana sheegay in kooxaha Premier League ay isku diyaarinayaan ciyaarista kulamada 13 Juun iyagoo haatanba shaqaalahooda kooxaha iyo ciyaartooydaba u sheegay in ay isdiyaariyaan maamulka horyaalka ayaa kaliya sugaya ka ongolaasho ay ka helaan dawladda UK si kulamada dib loogu bilaabo wararka intaasina waxay ku darayaan in horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska la soo gabagabayn doono iyadoo wax taageero ah uusan daawanayn Paul Pogba dhinac kasteetaba wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in uu soo idlaaday waayihiisii Manchester United wararka waxa ay sheegayaan in Mauricio Sarri uu yahay macallimka miisaaniyadda goorida ah siinaya laacibkan reer France ee doonaya in dib ugu soo celiyo kooxda Juventus sidoo kale wuxuu doo kale u yahay macallimka reer France ee Zinedine Zidane kaasi oo hogaamiya Real Madrid xidigani dhaawaca uu duleeshay xilli ciyaareedkan ayaa hal sano waxa ugu hirsan qadaraaskiisa Manchester United inkastoo United hal sano kale oo dooq ah ay u haysato Unitedna waxay raadinaysaa nolol ka dambaysa midda Paul Pogba jariidada Sun ayaana soo saartay liishan xidig oo loo arko in ay buuxin karaan booska uu faarujin doono laacibkani koobka adduunka kula guuleystay xulka qaranka Faransiiska waxaana qayb ka ah xidigaha Juventus Emre Pjanic iyo Aaron Ramsey oo kamida xidigaha ay ka dalban karto Juventus si heshiiska loogu daro waxa kaloo kamida xidiga khadka dhexe ee kooxda Bayer Leverkusen Kai Havertz kaasi oo la xiriirinayo inuu isaga tago kooxdiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan xidiga kale ayaa ah midka kooxda Leicester City ee James Maddison waxaana United ay raadinaysay muddo aad u dheer xidiga ugu dambeeya waa 24 jirka hogaamiyaha kooxda Aston Villa ee Jack Grealish kaasi oo Manchester United todobaadyadii ugu dambeeyayba si aada ay u raacdaynaysay wararka ka imaanaya gudaha Spain iyagana waxa ay tilmaamayaan in kooxaha Real Madrid iyo AC Milan uu dhaxmari doono heshiis isdhaafsi oo dhanka ciyaartooyda ah wararka malmihii ugu dambeeyay waxa ay sheegayeen in kooxda Milano ay aad u doonaysay laacibka weerarka ka ciyaara ee Real Madrid Luka Jovic kaasi oo ku fashilmay in uu la qabsado kooxda ku ciyaartay Stadio Santiago Bernabeu Jovic ayaa ku dhibaatooday Real Madrid ka gadaal markii 24 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan waxaana uu awood u yeeshay dhalinta 2 gool halka gool kalena uu caawiya ka noqday taasi oo meesha ka saartay suurtagalnimada in hogaamiyaha Real Madrid uu noqon karo wargeyska Defensa Central ayaana sheegaya in kooxda AC Milan ay doonayso saxiixa Jovic xilli Real Madridna iyada dhigeeda AC Milan ay ka doonayso laacibka goolka u wardiyeeya ee Gianluca Donnarumma waxaana macquul ah in AC Milan iyo Real Madrid ay isdhaafsadaan Gianluca Donnarumma iyo sidoo kale Luka Jovic kooxda Arsenal iyadana waxa la soo sheegayaa in loo ballan qaaday inay heli doonto laacibka ay aadka u xiiseeyaan ee Dani Ceballos kaasi oo haatan amaah ku qaadanaya kooxda ku ciyaarta Emirates Stadium haddii ay bixiyaan 44 milyan 23 jirkan ayaa 24 kulan u saftay Arsenal tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan isagoo waliba
hab ama ah kagaga soo biiray kooxda Real Madrid, laakiin wuxuu soo bandhigay qabyareed dhinac kasteetaba soo jiitay macallimkii horey looga ceeriyay kooxda ee Unai Emery iyo midka maanta ee weliba Mikel Arteta. sidaasi oo ay tahayna Dani Ceballos dhawaan wuxuu qirtay in wax wada hadal ah uusan la samaynin tababariisa kooxda sida rasmiga ah u leh ee Zinedine Zidane tan iyo markii uu ama kaga soo biiray kooxda Arsenal. wargeyska Ice ayaana sheegaysa in kooxda Real Madrid ay dalbatay lacag dhan 44 milyan oo euro haddii ay doonayso Arsenal in si toos ah ay ula wareegto. Arsenal ayaa si weyn u saameyn doona qorsheeda suuqa kala iibsiga ciyaartooyda laacibkan oo maxaa yeelay waxa macquul ah inay ku lumiso Dani Ceballos sidii ay u heli lahayd adduun lacageed gaaraya 50 milyan. hase yeeshee dhinac kasteetaba waa la dhacsan yihiin jamaahiirta Arsenal laacibkani da'ada yar aadkana u firfircoon. kooxaha Arsenal, Manchester United, Liverpool City iyo Real Madrid ayaa ku wada dagaalamaya saxiixa laacibka weerarka ugu ciyaara kooxda Monaco ee Wissam Ben Yedder. sida ay sheegayaan wararka, Ben Yedder ayaa horay ugu soo ciyaaray kooxda Sevilla, laakiin wuxuu haatan ka mid noqday xidigaha ugu wacan uguna wanaagsan horyaalka Ligue 1 Faransa, isagoo 18 gool xilli ciyaareedkani shabaqada ku shubay. taasi ayaa keentay inuu soo jiito xiisaha kooxaha ugu tunka waaweyn marka la eego qaaradda Yurub, haddii ay ahaan lahayd Premier League iyo weliba horyaalka La Liga Spain oo 29 jirkan ayaa lagu qiimeeyaa beec jaban oo ay bixin karaan kooxahaasi waana 40 milyan oo euro. wargeyska La Coupe ayaa sheegaya in ay jiraan kooxo badan oo xiisihiisa banaanka soo dhigin wali, kuwaasi oo noqonaya Tottenham, Atletico Madrid iyo weliba kooxda Valencia. arintani ayaa la micno ah in Ben Yedder waqti xaadirka kan iyo wixii ka dambeeyaba loo gali doono tartan baaxad weyn oo ku qotoma xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Vincenzo oo ah mid ka mid ah madaxda xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee kooxda Chelsea waxay soo saartay arrin lama filaan ah oo ku qotota in macallin Frank Lampard had iyo jeer uu telefoonka ka waco laacibka kooxda Napoli ee Dries Martinez, weliba si maalinle ah. Martinez ayaa qarka u saaran in si xur ah ugu tago kooxda Napoli marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. kooxo badan oo ka tirsan qaaradda Yurub ayaana saf ballaaran ugu jira 32 jirkan oo qaybi ay ka tahay Arsenal, Liverpool iyo weliba kuwa kale. Nadiga Plus ayaana ku dhow in dalab furitaana ay u gudbiso laacibkan, inkastoo heshiis 3 sanadooda ay u soo bandhigtay Liverpool. haddana macallin Frank Lampard rajadiisii ku qotatay inuu helo laacibkaas ma ahan mid soo idlaatay. Arsenal, Chelsea iyo Everton iyagana dhammaantood waxa ay raadinayaan saxiixa difaaca dhexe ee kooxda Lille Gabriel, sida ay qorayso jariirada Le Temps Sport. kooxda Everton ayaa durbana soo bandhigtay dalab rasmi ah oo gaarsiisan ilaa iyo 35 milyan oo euro oo dollar ahaana u dhiganta 38 milyan oo dollar. 22 jirkan ayaa weli isaga waxaa miiska u saaran xulashada kooxdii uu aadi lahaa, maadaama ay wada xiisaynayaan Arsenal, Chelsea iyo Everton oo sidoo kale xulashadiisa waxaa qayb ka ah nadiga Leicester City. Gabriel ayaanan shaki ku jirin xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado furmana suuqa kala iibsiga ciyaartooyda in uu soo aadi doono xagga iyo horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida sida iyo nabad galyo.